dadku deegaano badan buu isdhex maraa ummaddu waa isdhex martaa de kolley Puntland go'aan bay ku gaadhay inaan ummaddu isdhex marin Puntland go'aan bay wixii ku gaartay in beesha direed u dhashay Biyamaal u dhashay ee Gaasan u dhashay in intii caasimada Garowe lagu jirdilo loogu dhiibo Gafeedhe iyo in Cagjar arinta iyada waxaan filayaa ummaday baraarujinaysa baraarujin been u noqonaysa dheregay hadduu u dhintona de kolley Umar Maxamed Cabdi Aamin Puntland iyo kuwa loo dhiibayba de kolley xisaab gaar ah yeelan doonta ummaduna meelo badan bay wada degtaa ama meelo badan bay isdhex martaa ama ummaddu way isdhex martaa nin socota oo shacab ah oo sarkaal hore ahaa oo leeyahay ka baxay maamulkii in Cagjar oo diiday inuu dacwo la xasuuq ka geysto inay Puntland u dhiibto Garfeedhe iyo in Cagjar oo leeyahay halka intii la mariyo feerfe xagga laga geliyo oo leeyahay la dhiibo oo loo dhiibo Gafeedhe iyo kooxdiisa kolley waxaan filayaa Puntland arinta iyada ah de waa waxay ku tala gashay in Cagjar iyo iyaga cilaaqaadka u dhaxeeyana uu noqday beelaha direed wixii meelaha ku arkaanba oo aan dambi lahayn iyo qaladaad lahayn ama geef lahayn in leeyahay la dhiibo oo si caqliyana saraakiishi iyo waxgaradkiina ay leeyahay intay dhiibeen oo jir dileen oo qaladaad ka galeen ay misnada firaan ay qaybina dhahaaneen ninka isaga ah laana waa gudbinay qaybina ay dhahaan ninka tacadiya loo geystay qaybina ay dhahaan ninka waa la dhiibo sharciyan annaga kilalka waxa naga dhaxeeyo wixii meelaha maraya inaan gudbino arinta iyada waxaan filayaa waa arin noqonaysa qormaysa dadkuna meel walba waa wada mara marka waxaan u maleynayaa Puntland waxay qaadatay go'aan ah in laana cidii la dhiibo iyo cid walbaba berika maalin ayad annaga aan ku yeelan doonin markaan beesha direedna ama beesha Biyamaalna arinta iyada ay geysatay Puntland oo ay u geysatay beesha Biyamaal ku sameysay beesha Gaadsan ku sii sameysay oo qaladaadka ay ka geysatay ninka Umar Maxamed Aamin ay jirdil ku sameeyeen ay u dhiibeen Gafeedhe iyo in Cagjar shalayna uu diiday inuu galo dagaal ka qayb galo dad maata ah lagu xasuuqayo sababahana loo ceyrsanayay de kolley waxaan filayaa xeer fiican ee Puntland iyo waxgaradkeeda iyo cuqaashada iyo saraakiishada iyo madaxdeeda ay noo jartay markaan beesha direedna ama beesha Biyamaalna in isdhex marku uu istaago meel walbana dadku isdhex mari jiray ay go'aan ka qaadatay Puntland ayna ku qaadatay arrimaha noocaas ee dadkii waxgalka iyo berika maalinna aan leeyahay in mas'uuliyadda qaadanayso Puntland wixii ka yimaadana ay iyadu qaadanayso sidaas marka insha Allah ay noqonaysaa arintu shirkiga jaraa'idna intaas uu ahaa waxaan u sheegayaa cod dheer ugu sheegayaa beesha direed ee beesha Biyamaal meel kasta ay joogto arinta iyada inay dhiga u lahaato wixii hadhowna ummadda kolley isdhex markeeda qof shacab oo meel maraya oo leeyahay la socdo